madaxweynaha waddanka Turkiga ayaa gaashaanka u daruuray hadalkii Mareykanka ee ahaa in dalkiisu uu difaaci doono dagaalyahanada Kurdiyiinta ee waddanka Suuriya. Madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay in warbixinta la taliyaha dhanka amniga ee waddanka Mareykanka John Bolton in ay tahay mid aan la aqbali karin. Mr. Bolton ayaa ku sugnaa magaalada Ankara si uu Turkiga kaga xaqiijiyo badqabka dagaalyahanada Kurdiyiinta ee la dagaalamayay ururkaas ku magacaabay khilaafada Islaamka kadib marka ciidamada waddanka Mareykanka laga soo saaro waddanka Suuriya. Dowladda Turkiga ayaa ururka YPG u aqoonsan inuu yahay urur argagixiso. Mr. Erdogan ayaa maalintii Talaadada ahayd xildhibaanada xisbigiisa talada haya u sheegay inuusan aqbali karin oo aanay ka daadagaynin fariinta Mr. Bolton. waxaana uu yiri ma garanayo cilaaqaadka kala dhaxeeya kooxaha kala duwan ee Kurdiyiinta haddii uu Mareykanku Kurdiyiinta u arko walaalihiis oo kale marka aadayay u qaldan yihiin. Mudane Erdogan waxa uu ururka YPG u arkaa inay xiriir la leeyihiin xisbiga Kurdiyiinta ee laga mamnuucay waddankaasi Turkiga ee lagu magacaabo PKK. inkastoo ururka YPG ay iska fogeeyeen inay xiriir toos ah la leeyihiin PKK. saraakiisha dowladda waddanka Mareykanka waxaa lagu wargeliyay in Mr. Erdogan uusan la kulmi doonin Mr. Bolton sababtoo ah waxaa jiray olole doorasho deegaan iyo khudbadda madaxweynaha ee baarlamaanka. Mr. Bolton oo hadalkan ka jeediyay waddanka Israa'iil ayaa waxa uu sheegay inay qasab tahay in la damaanad qaado shuruudo ay ka mid yihiin badbaadinta ciidamada Kurdishka ee waddanka Mareykanka xulafada la ka hor inta aysan ciidamada waddanka Mareykanku aanay ka bixin waddankaasi Suuriya. Dowladda waddanka Turkiga ayaa hore wacad ugu martay inay cagta marin doonto kooxdan. Saciid Axmed Tamreyse wararka telefishinka caalamiga ah ee Star.